salaamu calaykum akhyaarta. maanta waxaan idin wadaa sababaha ay u burburaan shirkadaha ama kambaniyada. waxaad aragtaa shirkado badan ama kambaniyaal badan oo caan ah oo wakhti dheer soo shaqaynayay oo kadibna burburay. marka maxaa sababa burburkaas ku imaanaya shirkadaha? haddaba daawade ama ganacsade, waxaan kuu sheegayaa 5 sababood oo ay u burburaan shirkadaha ama kambaniyaashu. lambarka 1 waa aragti la'aan. kambanigu ama shirkaddu haddaysan aragti lahayn, waxa soo saarkeedu ma sii socon karo oo halkaas ayuu ku istaagayaa. waa inaad aragti leedahay oo ayo leedahay oo aad rabtid waxaan inaad ku yeelatid magac. haddii aad wax walba aad u samaysid inaad lacag ka samaysid ama inaad aad macaamiil badan ku heshid, kuma suurtagelayso. waa inaad yeelataa aragti adiga ku gaar ah ama kambaniga u gaar ah. lambarka 2 waa tayo la'aan. waxa aad soo saaraysid ama shirkadaadu waxa ay samayso hadday bilaa tayo yihiin, shirkadaada waxaa ku imaanaya hoos dhac aad u weyn oo shirkadaadu ma sii furnaan doonto. marka ku dadaal mar walba oo aad kambani leedahay ama shirkad aad leedahay inaad wax soo saarkaaga aad ka dhigtid mid tayo leh. haddii wax soo saarkaaga uusan tayo lahayn, shirkadaaduna tayo ma yeelanayso, oo shirkad walba waxay tayo ku leedahay wax soo saarkeeda ayaa tayo leh. marka ku dadaal waxa aad soo saaraysid inaad marka hore tayadooda soo hubisid oo aad uga soo taxadirteen. haddii tayadaa lagugu barto, waxay kuu horseedaysaa magac iyo maamuus iyo shirkadaada oo kor u kacda. lambarka 3 waa fadeexadda ama magac ka dilidda. haddaba ganacsade ama qofka milkiilaha shirkadda, waxaan kaaga digayaa inaad iska ilaalisid wax walba oo shirkadaada magac dil ku ah ama fadeexa ku ah. waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkadaha hoos u dhiga oo dhulka la gala waxaa ka mid ah magac xumada iyo fadeexadda. haddii waxyaabo fadeexada kambanigaaga lagu arko ama waxyaabo xunxun lagu barto, ama qofka ganacsadaha ama milkiilaha uu laba shaqo isku hayo, shaqada kambanigan ay fiican tahay laakiin isaga uu shaqo kaloo xun oo gamcaha kula jiro, kambanigaas ma sii shaqaynayo oo waxaa la leeyahay kambanigaas waxaa iska leh ninka noocaasa, ninka fadeexadda dhaqamada noocaasa ku dhaqma, ninka wax saas ka ganacsada. haddaba ganacsigaaga ha soo dhexgelinin marnaba wax fadeexad kuu keenaya, wax magac xumo kuu keenaya ha soo dhexgelin. haddii kale waxay galaafanaysaa dhammaan ganacsigaaga oo dhan. lambarka 4 waa maamul xumada ama maamulka oo kaa xumaada. haddii kambanigaaga ama shirkadaada uu maamulka ka xumaado, waxay hoos u dhigaysaa wax soo saarkaaga, horsocodka kambanigaaga. marka mar walba oo aad ganacsado tahay, waa inaad ku dadaashaa maamulkaaga. haddii maamulkaagu uu hooseeyo oo maamulkaagu yahay mid aan xirfad lahayn, mid aan isbilin lahayn, mid aan soo dhoweynta aan ku fiicnayn hadduu yahay, kambanigaagu horey uma socon karo oo halkaas ayuu ku istaagayaa. haddaba ku dadaal inaad maamulkaagu inuu fiicnaado, shaqaalahaagu inay aad u fiicnaadaan oo yihiin kuwa xirfadlayaal ah, kuwa waxa ay ka shaqaynayaan yaqaana. lambarka 5 waa qiimaha oo aan xadidnayn ama qiimaha oo aan limit lahayn, ama waxa ay shirkaddu soo saarayso iyo qiimaha ay gadayso aan isku dhigmin. haddii waxa aad soo saaraysid iyo qiimaha dul saaran aysan isku dhigmin, kambanigaagu wax soo saarkiisa kor uma kacayo oo faa'iido fiican ma keenayo. marka mar walba waxaad ku dadaashiin waxaad soo saaraysid iyo qiimaha inay isleeyihiin. hadday rabaanba qaali ha ahaadaan, wax qaaliya hadday rabaan ha noqdaan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan ganacsade. haddii aad ka heshay muuqaalkan ama uu ku cajabiyey, fadlan ugu dhiirigeli subscribe saan kugu soo badino
muuqaallo noocan oo kale ah.